waxaa jira siyaabo badan oo aad uga farxin karto dadka kugu xeeran. waa kuwan qaar ka mid ah talooyinka kaa caawin kara taasi. midda koowaad, dhoola cadayn. dhoola cadayntaadu waxay ka turjumaysaa wanaag iyo soo dhaweyn, waxayna noqon kartaa macdan xoog leh oo kor u qaada niyadda dadka kale. midda labaad, si taxaddar leh u dhagayso. u yeel waqti aad ku dhagaysato dadka kale oo aad xiisaynayso dareenkooda iyo dhibaatooyinkooda, taasina waxay ka qayb qaadataa dareenkooda farxadeed iyo xiisaha. midda saddexaad, u soo bandhig caawimo. noqo qof u firfircoon bixinta caawimaadda marka ay kuwa kale u baahan yihiin. waxaa laga yaabaa inay u fududaato in laga caawiyo howl maalmeedka ama bixinta talo iyo taageero go'aanada adag. midda afaraad, ixtiraam dadka kale. u ixtiraam dadka oo dhan iyada oo aan loo eegaynin kala duwanaanshaha dhaqan, bulsho ama qowmiyadeed. ixtiraamka dadka kale waxay ka dhigtaa inay dareemaan in la aqbalay lana qadariyay, waxayna kordhisaa farxaddooda. midda shanaad, faafi wanaagga. isku day inaad noqoto il tamar wanaagsan iyo yididiilo wanaagsan. iska ilaali cabashada joogtada ah oo ku faafi farxad iyo yididiilo eryadaada iyo ficiladaada. midda lixaad, u dabaaldegidda guulaha. u soo jeedi hambalyo iyo mahadnaq kuwa kale marka ay wax qabadkoodu dhacaan. dhiirigelinta dadka kale iyo u dabaaldegidda guulahooda waxay ka dhigtaa inay dareemaan farxad iyo qanacsanaan dheeraad ah. midda toddobaad, daacad noqo oo toos ah. si daacad ah oo wax ku ool ah u sii dadka kale. toos u noqo oo ha ka waaban inaad muujiso mahadnaq ixtiraamka aad u hayso dadka kuugu xeeran. midda siddeedaad, hadiyada sii. hadiyadaha yaryari waa hab fiican oo lagu muujiyo xiisaha iyo qadarinta. waxay noqon kartaa hadiyad maadi ah ama fal yar oo lagu daryeelo dadka kale. midda sagaalaad, ka qayb qaado howlaha bulshada. qaban qaabiso xaflado ama shirar dadka isku keena oo xoojiya xiriirka bulshada. howlahani waxay gacan ka geysan karaan abuurista jawi madadaalo iyo farxad. midda tobanaad ee u dambaysa, samee tusaale. isku day inaad dadka kale u noqoto tusaale wanaagsan habdhaqankaaga iyo ficilkaaga. inaad noqoto qof farxadda iyo yididiilo ka dhalataa waxay dhiirigelisaa dadka kale, waxayna ku dhiirigelisaa inay ku dadaalaan farxadda. xusuusnow in farxaddu ay tahay arrin shakhsi ah oo ay ku kala duwan tahay qof ilaa qof. sidaa darteeda waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad siyaabo kala duwan ula macaamiisho dadka kala duwan. waa walaalkiina Cabdixakiin Axmed oo idinla doonaya guusha labada daarood. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.